كافية موبايل كلينيك وجروب عافمات كاسو hawlo badan magaalada ka qabto caafimaad sida dadka xanuunsanaya waayeelka jilcsan in guriyaha loogu tago oo wixii ay u baahnayeen guriga loogu soo qabto sida kale wuxuu sameeyaa kaafiye xaalad emergency ba loo soo garaacayo qofka xaalad emergency la soo karo la soo dirista xilliyada habeenkii amba xilliyada aanu awoodi karin hospital la tago ayuu kaafiye guriga ugu tagaa soo qabtaa dhinaca kale kaafiye wacyigelin bulshada ayuu sameeyaa in ay iskuulada oo kale wuxuu sameeyaa in wacyigelin caafimaad iyo dhiirigelin ka soo sameeyo xanuunada la kala qaado sida socodka kale ayuu kaafiye wacyigelin ka sameeyaa iskuulada dhinaca kale muxuu ahaayay dadka xafiisyadooda iska fadhiya caafimaadka qaba kaafiye wuxuu dareensiyaa amba fahansiyaa inay muhiim tahay in caafimaadkooda jeegarayaan 3 biloodba 6 biloodba oo ayna sugin markay xanuunsadaan ee la oranayo hebel uu xanuunsaday saako kale waxaan qabanaa mid kamid ah shaqo maalmeedkii kaafiye oo ah in dadka jilicsan ee derbisiifka ee aan soo garaaci karin ee aan 20 konton lamarkayga fudud soo garaaci karin inaan ugu nimidno halkoodii aan soo wareysanay baahiyaha ay qabaan oo bulshadu marka horeba ka dhadagsaneed aan soo bandhigno inta badan bulshadeena oo aad u daryeesha oo aad ugu jilicsan waxay u geysaa bustayaal caawiyo kabo laakiin anagu kaafiyaan waxaan bulshada dareensiinana dadkana inayna u baahnayn kaliya ta bustayaal iyo dhar iyo waxay xidhaan laakiin ay u baahan yihiin caafimaad oo in baaritaan loo sameeyo maadaama alcohol isticmaalayaan oo beerkii wax yeeliso maadaama ayaga sida imika arkayseen oo kale naburaan isu geysanayaan oo kale ina daryeelkoodina caafimaadkoodii lagu soo daro oo bulshada dadka naga muxuu haayay hospitaalada naga waaweyn shirkadaha waaweyn ee dawooyinka keena ganacsatada waaweyn dhamaantood inay ogaadaan inay muhiim tahay xanuunku inuu halkan ka bilaabmayo oo muxuu haayay xanuunka kuwan ka soo dhex dilaaca inuu magaalada soo gaarsiiyo waayo magaaladii waa hal qoys been wadanahay waxa maanta dooxa Hargeysa ka dilaacay dhammaan weyna wada saameynaya marka inaynu halkan muxuu haayay sidii aynu caawimo haday noqoto dhanka caafimaadka haday noqoto in talaalkii Jones cadka la gaarsiiyo haday noqoto yaani xaaladii ku nool yihiin sidii loo hagaajin lahaa waxyaabahaas aan maanta bulshada u soo bandhignay anagu maanta medical check up baan u soo sameynay qaar kamid ah darbijiifka oo aan doonayno in caafimaadkooda baarno laakiin waxaan u soo jeedin lahaa dadka naga feeraha waaweyn haday ganacsato noqoto haday shirkooyinka caafimaadka yihiin shirkadaha caafimaadka yihiin inay ka caawiyaan talaalada iyo baaritaanada intan ka sii badan